صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل عملي خالصا لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد. intaa bacdigeed waxay ku macaanaan lahayd inay istiftaaxa iyo furfurashada ay ahaato u fiicnaan lahayd, laakiin waqtiga iyo jadwalka oo la iswaafajinayo ayaa sidaa ay noqotay. iminka waa 7:15 iyo midhidho. muxaadaradina hadday bilaabatay. waxaan rajaynaynaa ilaahay inoo fudaydiyo insha allahu tacaala. nadwadu ciwaanka baxay bay ku saabsan tahay oo uu ciwaanku yahay waxyaabaha ay diintani ilaalinayso qiimaha badan islaamiyada ay u soo degtay. 5 arrimood inay ku ururayaan oo 5 arrimood oo nafta diintu waxaa loo soo dejiyey diinta ilaaliso. diinta waxaa loo soo dejiyey nafta qofka bani aadamka ee muslimka iyo wixii raaca inay ilaaliso. taranka inay ilaaliso ayaa diinta loo soo dejiyey. maalka in diintu ay ilaalisaa loo soo dejiyey. qofka caqligiisa iyo garashada iyo garaadkiisa inay diintu ilaalisaa loo soo dejiyey. sida awgeed qodob ka mida 5 qodob ayaa caawa darsigeennu ku saabsan yahay oo ah waxyaabaha diinta loo soo dejiyey ee lama dhaafaanka ah. waxaa ka mid ah nafta qofka muslimka ah iyo intii raacda inay diintu ilaaliso. sida awgeed baa alimaam kitaabkiisa almuwaafaqaat alimaam shaatibi calayhi raxmatullah, muwaafaqaadka kitaabka la yidhaahdo mujalladka 1 safxada 38 ayaa wuxuu leeyahay alimaamu shaatibi calayhi raxmatullah isagoo masalada taabanayo ka hadlaya. wuxuu tilmaamay alimaamu shaatibi calayhi raxmatullah qad ittafaqat اlummatu bal saa'iru اlmilali cala ana الshariicata wudicat lilmuxaafadati cala الضaruuriyaati الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. halkaasuu mariyey sheekhu waxyaabaha diintan loo soo dejiyey ilaahay u soo dejiyey 5 qodob aynu sheegnay ayuu halkaa ku tilmaamay. من أمير الحاج كتاب كيس التقرير وكله مجلد كالصدحات صفحة 444. ومن أئمة الحنفية كميد وحوت المامي يسونا عليه رحمة الله وحيابها دينتا إلى يسود الشيء إن شنت عارمو أي تهين. sida awgeed naftan la ilaalinayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan uu soo dejiyey nafta in la ilaaliyo. shareecadu nafta aad bay u daryeeshay. waxaan rabnaa inaynu sida culimmadu u tilmaameen oo u tilmaanno si cilmi ah uga hadalno oo qofka muslimka si cilmiya u qaato, dabeetana caqiidaysto, dabeetana ku dhaqmo, dabeetana dadka ugu yeedho ayaynu doonaynaa. shareecada islaamiyadu ama diinta islaamku waxay aad u daryeeshay nafta daryeel meeshii u sarreeyey oo qof bani aadama naftiisa la daryeelo bay diintu daryeeshay. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaam uu soo dejiyey wax alla wixii masaalix iyo wanaag ah oo qofka naftiisu ifya aakhiro ku hagaagayso ayuu alle subxaanahu wa tacaala u sharciyey oo wanaagiisu dhan soo jiiday. wax alla wixii dhibay diin iyo dunyaba dhib ku keeni karayana ilaahay subxaanahu wa tacaala naftan waa ka ilaaliyey.
سيدا أوجد الإمام النووي كتاب كيسا روضة طالبين مجلد كسقالات صفحة بغولة فرتني يسيدين markuu ka hadlayo wuxuu yiri shariicada islaamku waxa ay dar yeeshay inay ilaaliso qofka naftiisa muslimka inta raacsan al-anfusul ma'suuma nafaha la yiraahdo qofka muslimka naftiisu u horeyso islaamnimada iyo diinta in lagu ilaaliyo kii jizya laga qaadayay gaalka ahaa ee sanadkii xoolo bixinayay islaamka calankiisa mujtamaca muslimiinta ee dawladooda ku hoos noolaa in naftiisa la ilaaliyo oo maalkiisa la ilaaliyo kii amaan la siiyay ee la nabadgeliyay ee muslimiintu ama sultaankii ama dawladii ama qof muslimiinta kamida nabadgeliyo uu siiyayna in la ilaaliyo sida awgeed wasaa'il baa loo dhigay وسائل أيا الله نجاي وسائل شاسو لجو إلى علينا ينفط إن عن لجو تعدين نفط إن عن لجو تعدين كو وسيلة ذكوار الله نجاي تحريم الاعتداء عليها إن عن نفط لجو تعدين لجو تعدين نصوص الشريعة وحيكتمي إن نفط الله درياله وحيالله نفط الله وحيالينا دنبياده وين بني آدم إلهي كجره أي حاجة هريك جتشتها سيدا أوجد أيا سدح دنبيبا أبوين ذنوب بني آدم قالوا مرك الله إيجو القرآن كان لقى قاطع دنبيجا كواي وقال لي يا شرك دنبيجا الله بعد كحيجا دنبي بني آدم إلهي وكجره بني آدم والله كجره سبحانه وتعالى وحويا نفحق دهل لو دلو نفحق دهل لو دلو دنبيجا سدحاد آدمه قالوا إلهي وكجره وحويا زنده وقفوا زنيستو إلهي مركو تلمامها عباد الرحمن هنور يطبنك والذين لا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق سمارت محاكم الرئي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدح ذا الذنب والذنوب هو وين بني آدم قالوا وإلهي سبحانه وتعالى وكجره ذنبي الله بابا لغني الله وحي سبحانه وتعالى يسوى الماما يا آيات تذكرنا إنسان دلك قفك مسلم كحمد هلو دلو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قفك قف حق درك كدلو سكسو بديرا كدلا جهنم يا إلهي كو أبا المرينا يا وانقواريا الله وعرضي ونعضلي عذاب وين وعظيما الله وأديادي النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ديسي ما انتي عرفه خطبة ديني ومسلمين تي ميشا يسوق شمي وبقول إيه زيادة كل أحيد وحكم إذا خطبة ديسي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حرصولك تلمامي صلوات الله وسلام عليه ورديقينا يا مالكينا يا نفتين يا شرفتين حرام بيدين كتاي إنا وحيا ليسان ونبيا ديل وحي سوقي ستان سداي مالين كان مانتا حرام بيدين كتاي يا بشن يا بلد كنبا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ربكين باللقين من دونتان أعماشا سمين يسامو الله يدين كورا يسان دونا فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب وحرصوك الله صلى الله عليه وسلم ربي لكم دونتان الدنيا وتقولي دونتان الله سبحانه وتعالى بائد وريسان دونا وقفك السؤال باكو إيمان دونا معنى أنت ولا سؤال دونا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين سؤال شو إيمان إيسا أنا قد أبالي ضد إسلاية أو إسدلاء أو محنكو إرادة نيكو ضدادية هنقونين النبي صلوات الله وسلامه عليه
إمام البخاري بحديث كاس كتاب الحج كسو ساري وحيابها النبي تلمامي وحا كاملة صلوات الله وسلامه عليه حديث كالإمام الترمذي إمام ابن ماجه لبضوا أي كوكينين كتاب كوضا سنن كتاب الديات أي كوكينين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق الدنيا نزوشة أو لوايو أي وحويان قف مسلمة أو ديجي سلطاديو أي إلهي سبحانه وتعالى أكتي سوحا سهلا إن الدنيا اللوايو وأي بعضه خلقي قف مسلمة ديجي سحق الله مضاد لها sida awgeed baa shareecadu heerka ay gaarsiisay ilaalintay nafta iyo inaan lagu tacadiyin ayaa waxay xitaa xarimtay in la dilo kii mucaahadka ahaa kii muslimiinta ballan kula jiray ee gaalka ahaa xitaa shareecadu inta ballanka uu ku jiro lama jabin karo ballankii haddii xitaa laga boqo inuu isagu ballankii ka baxo إن الله عد يستنمو يلمد بالدبن دابيين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حدي معاهد كي لمد لي كرو وكين نبت قليا لسيي لمد لي كرو جسيدا لقى قادي لمد لي كرو شريعة ميل أرد بيجيس رسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد قف أما سلطان أما الدولة أي بلن لك شيء وقال أنت أضعف الدلا رائحة يدقونك جنة قفكاسي أورين ماي وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما وحان ريح ليدا يؤود جيدا جنة لقصو أدبسدا ولقصو عرف صدا أفرتن سنضوط من الله صعد النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري بحديث كاكوكيني كتاب كيسا صحيحة وحيابها أي نفتو تعدي اللوغة إلاليي نصوص الشريعة فرها بدني آيات في أحاديث وحكم إذا آخرني وحقفك مسلم كاللوغة شيئا قف مسلم أملين ما إنه قف مسلمة وعقل له وقلبي سفيوي هيومي قبا إنه كنت منا ينصوص القرآن السنة له نفت إلهي إلاليي انتو يسكا عندي يدقاترو إنه حق ده أدليو وقف بلايا وضو وشيطان عن هذين أيو وجهنم يمل حلوغي لكن قفك خير الله دوني قف وحق لي ما سيدا قفك مسلم كاي نصوص تسمكو أركو نو قضب وصو بحيس وحا أصو بحيا إنه حرميو نصوص الشريعة وأمرك إلهي احترامه وحرماتك إلهي وينيو محاير أصل وحا قفك مسلم كاهي حدود إلهي بغي إنان طلابين وقافا عند كتاب الله قفك وإنه حدك إلهي بغي أن طلابين وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون يعني حدك الله ديك قفك الله وقفك ميت كغير مؤمن كإنشيغين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قفكم مركا اختيار ملك إلهي رسولك سودة صعدا صلوات الله وسلامه عليه حيبا قفك وصل بحي وحاكميد قفك مسلم كأيه وإنه شعل هذا ألا وحو شعليه ألا وحو النعيبين وإنه النعبادة نفتح حق دهين اللي قد له ألا ما أقلها وقلاني نفط إلا بدبادي ألا أقوليه شعله وبدبادي ديني الدنيا وحيكون مضان الله إذن بدباده وحيابا قفك وصل بحي وحاكميد بقى قلينت آد كأوين إلهي ذاتك كبقى قليي نفتني اللي وحد قدبون نصوصنا لقوة المامي عقاب كأخروي أما آخرية دارتا تنبال الشيغية خطرت أوليه قفك أرنتاس وحي أوكينا يسائل آد سقط آد وحيابها قفك كعلينا وحاكميد دي قفك ليواب نوليسي ومضى إلى نوليسي بيقول لي قنتا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قضب كاللباب نفت شريعه وحيو إلى لسي وحيو بكتي وحلي إلى سد الذرائع المؤدية إلى قتل النفس
wax kasta oo sabab ah oo keeni karaya naftan in ay dhimato ama la dilo shariicadu waa xidhay jid kasta oo nafta dhibaato lagu gaarsiin karo sidaa awgeed shariicadu waxay ku dadaashay in wado kasta ay xidho wadooyinka keeni kara in naftu waxyeello ay soo gaadho ama lagu xadgudbo waxaa ka mid ah dadka hub isu qaata dadkii hub isu iibsada oo hub isu qaata hub fudud iyo hub culus midku doonaba ha noqdo mid gawaari la saaro mid yar yar oo bastoolada ah qoriyo tikniko maduna hubkii isu qaadato waxyaabaha shariicadu sii xidhay kamid man xamala calayna silaah falaysa minna qofka hub noo qaata naga mid maaha buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam shariicadu waxay dhigtay waxyaabaha ka iman kara umadu hadday hub isu iibsato qabaa'ilka Soomaalidu waxa weeyaan qabiil walba hub buu iibsadaa reer walba hub buu iibsadaa aan hub iibsano hubka iyo waxaasi fitan dagaal iyo dhiig sokeeye khasaaro diin iyo dunyaba leh ayaa meeshii ka imanaya haddii ummaddu hub ay haysato ilaa hubku waxyaabaha la intifaacsanayuu ka mid yahay aadaabtii xitaa hubka loo isticmaali lahaa iyo qaadashadiisa iyo magaalo iyo masaajid iyo miyiga iyo bulshada dhexdeeda shariicadu way sheegtay xadiiska imaam Bukhari iyo Muslim soo saaray min xadiis Abi Muusa al-Ash'ari rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man marra بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل قفك لصو مرهب ستواغا فلارها يدور ما يا الاستعمال تريا سيفا يمكن هو اوتوماتيك الاستعمال قفكي صومر السوق سوقيدا وحو كلا باشترسنين او كلا ايبسنين اما مساجد يدا كوب قفكي لا سو غلا اما فلار سيتا اما ورن سيتا افكا حقفو si aanay qof muslima u xagan qof muslima si aanay u xaganin ma in lagu taago iyo in la isku dhufto dadka muslimiinta dabaabaadka isku garaacay isbaabi in arkayso xagashadii baa xitaa la ilaalinaya si aan u xagan birta aad jidato afla qabo oo ka ilaali nabiga sallallahu alayhi wasallam soo ma jeedid ka ilaali si qof muslimaan xaqtina u soo gaarin saasa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam xeeray shariicadu diiday waxa kamid ah in xitaa qofka muslimka hubka aan lagu fiiqin ama sida loogu taagin ayaa shariicadu diiday ama tooreed iyo birta inta waxaynu arkaynaa dad yowla leeyahay xabad bay saga qaraxday geel jiraha ku wada ciyaaraya tooreed baa lagu ciyaaraya xabadii baa lagu ciyaaraya waa ku baxsatay baa la leeyahay dhow rasuulku taawadiye sallallahu alayhi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه قفك ولالك هب ساوتا وكفيقا بر ساوتا ملائكته وين نعدليسا نعدلك نعد يكدا كجيدي افك برت اكو جيدين كجاد الى كدايو عاضه وصرونيسا هبا نقد قفك كان كفيقيو اما كتاغيو ولالكي اي ابيه يكويدي عليه فرش marka saaxiibiyo geel jiraan wadanahay xamaali baan wadanahay asku askar baan wadanahay meel baan ka wada shaqeynaa iyo waxa warkooda halka iska dhig حتى لما أقول أرنتاس رسول صلى الله عليه وسلم إلا جودي يوم وحن برتن شيطان بقفك أخرى عنكرا رسولك حديث مسلم كلاوة المامي لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح قفكين قفك كمد ولكن هبيان كتاغن وكفيغ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ما أقى قفك شيطانك إنه قعنتي سكر نفطه ومركا دبيتنا قفك برتي أي وحي الله يصوء أيدي شو دبيتنا قفك سيدا النار كم تيستو قفك مو أقى انكري عرفت أن خطر عين كاسا كدل انكريسو قفك يام درين سنين بعد عكريس رسولك صلى الله عليه وسلم تلمام قفك هدي ولالكي يراوي حتى سيفتا كان ايغا ايدي اما تور ريدا ايدي اما قوريغا ايدي بالخسنده يحبدي سيوحا انفيريه انو ادو تحذروا اذا صلى احدكم سيفا هدي قف وسيفتي سقال كسا سيبو بس دو ايغو فأراد أن يناوله أخاه دبيتنا دمع ولالك إنه كعلي وديبو فليغمده ثم ليعطيه إياه قال كإنتو قليو دبيتنا ولالك هوليب
حتى markaad u dhiibayso afkana aad ugu dhiibin baa iyadoo ka dadban inaad u dhiibtid shareecadu waxay xarimtay waxyaabaha waxa u noqon kara nafta sida loo ilaaliyo caydii iyo aflagaadadii iyo kaftankii uskaga ahaa ee aan wacnayn iyo waxaasoo dhan bay shareecadu diiday marka rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sibaabu almuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun xadiiska bukhaari qofka muslimka cayda la caaya waa faasiqnimo qof gobo khiyaar dadka ma caayadi ciyaala suuqa dadka caaya marka cayda qof muslima la caayayo gobonimo maaha waxa weeyaan waa faasiqnimo dagaalka aad la dirirtaana kufri bay keenaysaa haddaad xalaashatada oo xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray waqul licibaadii yaqulu allatii hiya axsan ina ashayطaana yanzagu baynahum ina ashayطaana kana lilinsaani caduwan mubiina اسلوبته في القران كبري ادومهايغا waxaad ku tiraahdaa ereyka ugu wanaagsan qofka kula hadlo walaalka muslimka shaydaanka baa dhexdina waswaas iyo xumo ayuu dhigi karaya shaydaankuna waa cadow وعدونimadiisu ay tahay macruuf bani aadamka in lagu gooyo shaqadiisa sidaa uga culimadu waxay yiraahdaan wa kullu sababin ada qatl ma'sum bighayri haqqin fa huwa muharram sabab kasta oo keeni karta qof shariicadu dhiigiisa ilaalisay in la daadiyo xaraam weeye شريعة وحيوانات كانت وحكمها الوسائل لها أحكام المقاصد وسائش يابا وحلقوا قادا مقصدك محان كورا على حكم كيسي الميسا ونك لا إرادة مثلا أبو بكر بن عاصم الأندلسي ورجع لماذا آية استيد بقول سائل واتنكن إلى هذا انتكمدا أي وحو إرادة وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد wuxuu leeyahay ficil kasto adoomaha kan la helo wax qofka ku soo gaaraan ama waxa weeyaan waa wax qofkani uu sabab ahaan wax ugu noqday wasiila ahaan ama maqsad uu la qasday sida naftatan waxa lagu yeelaynayo ama wixii qofku amdi iyo kasb u sameeynaya iyo bareer iyo toos u sameeynaya ama qofku sabab uu isagu waxa u noqonaya sida uga baa shariicadu waxay qarirtay oo fuqahaadu tilmaameen qofku naf inay wax noqoto haddii uu sabab u noqdo uu damaanad qaadaya waxaasi ama dil ha gaarsiisnaadeen iyo qurgooyo ama dhaawac iyo dhibaato kale ha gaarsiisnaadeen الإمام النووي كتاب منهاجك مغنية شرح منهاجك مجلد كأفراد صفحة سديتني يتطبع وحويري وفرصه حيوان بضنوا إنك إنه وحبوب أكينين ولو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح qofku hadii uu ku daafad ama qashin ama wasakh wadada ku shubo ama qaraha oo la cunay qolofkiisii uu ku tuuro banaanka muuskii baa lamid ah ku tuurtay oo qof soo maro ku siibto qof baa isku taago waasib fikirkaas uu boodi halka maskaxdu ku dhufta maskaxdii baa dilaacay waa dhintay ama gacan baa jabtay intuu dhacay هذا أدوك قفة كان ما أظن تورينه مسكحة وبادة الدولك كعنتك ما أظن سمين لكن يا صابوها قراها كان هذا ماشي كتورته هي موس كذا قلف كيس يقف كيسة قف كان دردور ماشي كمن إلى أغل كيس وقبل صماها ضامن باب كان لقونس ابن قدامة مغنية جاءت خلقت الناس حدث سيدنا يزداد عليه ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة فإذا حفر بئرا في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرا أو حديدة أو صب فيه ماء أو وضع فيه قشر دقيق أو نحو ذلك فهلك به إنسان ضمنه مجده وحليه هدي قفكو واجب نقونيا إلا ضمانات قاضي وحي السبب كيماده iyo wixii mubaashir ku yimaad hadii aad jidka dadku ay marayeen aad ceel ka qodo godweyn baad ka qoday ma aadan habaynin dadku si maaragtay ceelkaas uga badbaadi lahaa wax maslaxada oo ku jirtana ma jirtaba
ama maxaan ku idhaahdaa qofkii dhagax buu waddadii dhigay qof baa ku waxyeeloobay ama bir buu waddadii dhigay qof baa ku waxyeeloobay biyuu ku shubay cid baa ku wax noqotay ama maxaan ku idhaahdaa badiiqa iyo qaraha iyo waxaasuu qolofkiisa dhigo waxbaa lagu noqday fahalaka bihi insaanu qof baa ku waxyeeloobay oo ku dhintayba damiinahu uu damaanad qaaday shareecadu marka say u ilaalinayso naftan inaga sahlan waagii Soomaaliya laga saxay 1990 ayaa nin fanaaniintii Soomaalida ka mid ah oo kumba la oran jiray inuu dhintay inuu liigaran maayo ayaa wuxuu qabtay xagga ay London sala waris waraa kumbe xagga adiga ka yimi bacdi bal ka warano sidee dadku ahayd xamar iyo bal xaaladihi ka waran wuxuu yidhi nimayow aniga meeshaan ka imaaday buu yidhi xabadda yaanyada iyo nafta xabadda yaanyada khaali ah yani xabadda qaali ah buu leeyahay nafta meeshaanuu ka imaaday xaalad adag baad markaa socotayo aan runtii caadi ahayn qodobka saddexaad shareecadu waxay dhigtay qisaas nafta saw ilaaliso qisaas bay naftu dhigtay wala shareecadu tilmaantay walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab la'allakum tattaquun suuratul baqara aayadda 179 dad yahow qisaasta nolol baa idinku jirta iyo raaxo iyo deganaan iyo nabadgelyo idinku jirta qisaasta kitaabku wuxuu inoo sheegay kariimka ah quraanka ilaahay soo dejiyay qisaastu inay xitaa ummadihii hore ummadan ka horeeyay in dilku qisaas uu jiray wakatabna calayhim fiiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آيات وحي شيغيان إن قصاص الحتال كان على من قبلنا يوجري بشيغيان قصاصته waxay xaqiijinaysaa dadku hadii qof loo dilo waxay xaqiijinaysaa nabadgelyo iyo amni bay xaqiijinaysaa nafti baa dhowrsanaanaysa iyo wixii la mid ah sida awgeed baa quraanku ka waramay qisaastu inay nolol taysan iminka arkayno oo waxay nolol u tahay laba qaaba qofkii qof dila haduu og yahay inaanu badbaadayno geedka la soo taagayo oo isna halkaa lagu dilayo qofna kuma dhiiradeen qof inuu dilo oo gacanta u tago degmooyinka qaarkood meelo qisaasta laga fuliyay dhowr jeer baa waxay waagi dambe shacabkii gaadheen haddii laba jir isku carooto inay yidhaahdaan toortayda iyo qoriga inoo dhigan halkan noo saar waayo waagoo isugay dhigan jireen way isku tili jireen sooma wuxuu og yahay inaanu baxsanaynin cishadii dambe ayaa mid la dagaalamay dabeetana tooraydu ku yara dhuftay tooraydii ma dilin ninkii way dhaawacday markaas wuxuu u qaatay ninkii inuu dhintay cararkii u cararay inuu baka talaabo ku sigtay qofku hadduu og yahay in la dilayo hadduu qof dilo dadku raaxay ku noolaan lahay midda labaad qofkan qisaastu waxyaabaha keenaysa waxaa ka mid ah qofkan qaatilka qof aan ahayn qisaastu ma dilayso walaalkaa baan la dilayn aabbaha baan la dilayn wiilkaagii baan la dilayn adigii wax dilayn baa la dilaya taasna waa raaxay ka tahay xaggaas raaxay ka tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay waman qutila madluuman faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatl qofkii dee qof laga dilo isagii oo dulmanaa oo qof laga dilo dhiigiisii sheeganayay dadkii awliyaa u damka ahaa ayaa dee iskale xaqiisa iyagaa ka hadlaya intii dhaxalkiisa lahayd baa go'aan ka gaadhaysa go'aankay gaaraan baa isimka iyo odayaasha iyo culimada iyo waxgaradku kula shaqaynayaan laakiin in lagu xadgudbo ilaahay waa diiday subxaanahu wa tacaala qisaastu bogsashaa ku jirta iyo caafimaad qofka qofkii dilay haddii uu disho oo loo soo dhiibo inuu cafiyo oo marka qaato uu diido waa bogsanaya waa caafimaadaya cuqdad iyo ciilqab iyo cadho dambe calooshiisu kuma jirayso shareecadu waxay dhigtay in haddii wax la qisaasayo ay daruuro tahay dilka iyo qisaastu in shuruudihiisii uu oofsado inuu oofsado oo markhaatigii buuxsamo inay laga maarmaan maxay ku iman kartaa imaa biiqraarin min saaxibi aljariima in qofkii wax dilay uu qirto yidhaahdo war ninkaa anaa ku tala xumoobay anaa ikhyaaray ninkaa dilay haddaa ay daynaysaan iyo haddaa ay qisaasanaysaan
وورعد مركز وورعد إما بشهادة شهود إن مرخاتي intii loo baahnaa ay furaan ninkan inuu dilay cadadkii kaafiga ah loo baahnaa jariimada meesha ka dhacday haddii uu yahay waxa kani wax rajmi ku sida awgeed diyada camdiga ahi way ka duwan tahay qofka kas wax u dila oo dabeetana ciddii diyada dhiigga lahay tidhi ma dilayna diyahana la siiyo qoladii caynkaa tidhi waxa weeyaan waa ka duwan yahay diyada camdiga ahi diyada shibulcamdiga iyo maxaan ku idhaahdaa diyadaas way ka duwanta diyada kale sida jamhuur culamaa ay qabaan oo diyada qofka uu bixinayo qaatilka camdiga wax u dilaa caaqilada laguma lehe isagaa lagu leeyahay isagaa intuu haya hanti laga qaadayaa dadka dhex maroo baahayso ayaa la odhanayaa maqdaraareedka iyo magta caaqiladu wadaagto ma ku jiro laakiin shibhu camdiga iyo wixii lamida iyadu caaqiladaa qaadaysa waana muqallada diyada camdiga laga bixinayo waa diya sharci u adkeeyey alimaamu nawawi calayhi raxmatullah rawdatu taalibiinka markuu ka hadlayo addiyatu tataqalladu fii qatli alcamdi min alaaati awjuh diyadu way adkaataa shareecadu way adkaysaa haddii ay tahay diya laga bixinayo qof kas wax u dilay oo camdi ah saddex weji waa marka koowaade fatajibu cala aljaani walaa taxmiluha alcaaqila jaanigii wax dilay qofkii dembiilahay wax geystay ku waajibaysa caaqilada laguma laha baahaysaa la odhanayaa adeer wixii tolka ka dhaxeeyey wada bixin jireen ma ahay baahayso wixii isaga u hayanta gunta laga jaro waa marka labaadna watajibu xaalatan wa muhallatha diya magdharaareedoo markaa la dhigayay noqonaysaa saddexna waa loo qaybinaya soddon afar jira ah iyo soddon shan jira ah iyo 40 rimay ah boqolkaasaa loo soo tubayaa oo muddo lahayn baa farta laga saaraya qofku hadduu sidaa u og yahay haddii xitaa la cafiyo boqolka halaad oo sidaa shareecadu u qaybaysay la adkeeyey hadduu sidaa u og yahay ku dhiiran maayo inuu qof muslim xaqdarra ku dilo kuma dhiiranayo mas'alada khatarta ah ee cuqaasha iyo waxgaradka qaarkii ku imanaysa magta say loo bixiyo khatar cadiim baa ku jira sababtu waxa weeye magtii marka la soo qaado dadkii lahaa ee maatadaha la siin maayo waxaa la siinayaa boqolkiiba 50 ama boqolkiiba 75 kuwa ugu roon baa la siiya inta kale qabaa'ilka qaadanaya boqolkiiba waxaa la siinayaa 30 ama boqolkiiba 50 baa la siinaya inta kale qabiilka qaadanaya waxaa la leeyahay qabaa'ilka qaybsanaya waa xaraam agoon maalkeed iyo xoolaheed baa la cunaya waa waxa in badan oo cuqaasha iyo simada kamida caruurahooda u dardaran yihiin faa'iido u lahayn in wada waalwaaliyeen qaarkood caruurtooda ma aragti waa caruur la siinayo xaq agooneed iyo xoolaha agooneed baa la siinaya soo ma jeedid in badan oo kamida cuqaasha iyo dadku dad fiican oo fahmay arrintiyo iska ilaalinaya waa khatar cadiim marka arrintaasi aad loo ogaado wixii hawl loo jaro wixii loo jaro mooyaane waxa kale magta qofku waa dhaxal dadkii dhaxalkiisa lahaa baa la siinaya qofkaasi dil ku soo baxay haddii cid isaga ku xidhan ay jirto oo noloshiisu ku xidhan tahay qayb ka mid ah shareecadu waxay ilaalisay inta ciddaa laga furfurayo inaan lagu fulin dilkii shareecadu ay ku xukuntay مثال من بحنينا حديث في صحيح مسلم كسوغان إنما با رسولك أتيمي أما قفض مرأة هير غامدي كدلتي أتيمي وعيتر يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني أنا موازني استيي الظاهري رسولك إلهي قبل قول حلال الصوم مرتبه أهي dabeetana markii guurka xalaasha ahi uu iska dhamaaday ayay zinaysatay nabiga uu timi daahiri rasuulku waa celiyay sallallahu alayhi wasallam maalintii labaad bay ku soo noqotay ya rasuulallahi lima tarudduni maxaad ii celinaysaa soo kuma oran waa zinaystay xadka ilaahay iga oofi la'allaka an taruddani kama radadta ma'iza sidii ninkii maaciz ahaa waa ninkii asxaabada waqtigiisii intuu zinaystay rasuulku uu yiri war ninkan wax waaliya ma ku ogeydeen reerkooda wareystay may oo intuu yimid waa zinaystay xadka iga oofi uu yiri ma ninkaas aad u celisay baad ii celinaysaa fa wallahi inni la hubla wallahi anigu urban baleeyahay rasuulka ilaahay
arrintu waxaaba ku sii xaqiijinay inaan xaaraanta ku dhacay uur baan leeyahay qaala imma la haddii haddaba dee aad diidday inaad naftaadii asturto oo inaad hadalkii ka noqoto aad diidday orodoo markaad fadhabii xataa talidii orodoo tagoo markaad dhasho oo ilmaha dhigto ii kaale falamaa waladat atathu bisabiyi fii khirqatin markii ay umushay ayay ilmihii soo qaaday iyadoo calab intay ku soo duubtay wadda bay soo qaadoo keentay qaalat haada waa kan rasuulka ilaahay oo qad waladtuhu waa umulay xadkii iga oofi gabadha iimaankeeda balfiir waa umulaye iga oofi xadkii qaala idhabii faardiciihi xataa taftiniihi orodoo noqo oo ilmaha naaska jaqsii oo nuuji ilaa aad naaska ka gubiso falamaa fatamathu atathu bisabiyi wa fii yadihi kisratu khubsin markii ay ilmihii bay qaaday 2 sannadood bay naaska u dhigayso jaqsiinaysa naaskii bay ka gubisay subaxii dambe iyadoo xambaarsanoo waday keentayoo xabad kibisa jabkeedna ilmihii uu gacanta ku haysto halkaasay fadhiisisay eeg rasuulka ilaahay wayga maarmaa maanta iima baahna wakaasoo kimistiisu iska cunaya cuntuu gaadhay caana waa ka gudbay iga oofi rasuulka ilaahay maalintii ugu horaysay rasuulku kama oofin suu u ilaalinayo salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilmaha yarba dee uurkeeda ku jira markuu soo baxayna xanaanayduu doonayay intaa rasuulku waa daynayay ilaa ay ka soo gaadheen markii arrintu sidaa noqotay qaalat haada yaa nabiy allahi qad fatantuhu waqad akala aطacaam fadafaca asabiya ilaa rajulin min almuslimiin in dadkii ka mida qaraabadeeda muslimiinta buu u dhiibay uma amara biha faxufira laha ilaa sadriha god baa loo qoday ilaa halkaa labada naas ka sarraysa ee godku markaa madaxeedii kalxamaheedii ay muuqanayaan dabeetana rasuulku fa amara annaasa farajamuuha dadkii uu amray waa la rajmiyey halkaasi maaragtay gabadhaasi rasuulku sal allahu alay wasallam khayr badan u sheegay uu yidhi 70 qoysoo reer madiine ah toobadii ay keentay gabadhaa haddii loo qaybiyo way ku filnaan ابن منذر عليه رحمة الله وحوليه أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع علماء الإسلام يقولوا جماع سيهين قفك الضمرة حامل كأهدي زيني ستؤور كاسنا ويا الزينو لمد ليو لنجم مايو إلى أي نكتب المهؤول ابن قدامة قل يسمغنيغا ساسو كينا يا مجلد صلى الله عليه وسلم الإمام النووي روض الطالبين كمجلد كسغالة وكينا ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره لا نعلم فيه خلافا marka arinta shariicadu waxay tusinaysaa heerka ay adkaysay oo diintu u ilaalisay bay tusinaysaa qodobka 7aad shariicadu waxyaabay la timi waxa kamida dadka inay ku guubaabiso ama u bandhigto inay iska caafiyaan cidii qisaas mudata haday nafta wax gaarsiiso shariicadu taasay la timi faman ufiya lahu min akhihi shay'un fi ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun سورة البقرة ألا يقول يقفك اللو عفيه من أخيه أي من دم أخيه ولكن بيجي سقفك اللو عفيه ويكون قصاصا من يدينا السير ليراه فاتباع بالمعروف فعليه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إن كان عفي سيفي عنه ضبق الله مكادي سيقوا بني ملي وحال وقع ورأديقنا سير وناك سن حقي أبحي للقولها ألا يمحكوا قبي ذلك تخفيف من ربكم والرحمة وفضيل يا نحريس يا رحمة هذه حقي كتب سبحانه وتعالى حقي دعوة يدي وكم دي مشاكل يا ما شاع ويمادة وحاضرك رسول فنا يدعو عياك إيمانيا كعم باكر ويسا دخل باقي غاديا من حنكو هذا أوركاس وحجاريا ماذا حاصل وحجاريا فمن تصدق به فهو كفارة له قفك ولا في ديك صدقة كفارة بيقول نقص إنك وهذا برنامج كان وأرجيه وأيام ضمن هدي قفك حكتما لو ما علماء ينور كلاسيما والحكتما محل لقسيما لو علوه دون تيجي تقال لنا حكتين لو يقولوا حاجة دنيا يرى سكول من عمل لي ودكتور وحسكول دفتي بالورنا يا هلا كلاسيما ومعهم كل هذا حقوق الغالب كلا قاعد يوحى الله سيما يميني كلمتان بعد عيد
oo wuxuu ay xukuumada iska tahay xukuumada inay iska tahay ninka qaadiga markuu eego xundee ka soo qaado ayaa dhici karaysa sida awgeed rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiidka imaamu abu daawud sunankiisa uu ku keenay saxiixa عاصم بن مالك بن خادمك نبي قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو في صحيح سنن أبي داود أفرق نفر بغسقاش أن يتطور رقم كيسوين وحلي أنس بن مالك ما أرى رسولك الله كاني أرين قف أنتو قفح كل فتئين له قبقوا يا مضن إلا رسولك بأمر تشيرين والإسكعف ضعفين كرش اسكعف للنبي ورنجري صلوات الله وسلامه عليه قضب كسيدات شريعه waxay banaysay nafta si loo ilaaliyo xifdinteeda waxyaabihi laga xarimay ee maxduuraadka ah xaalada daruura xaaladu naftu ay nolosheedu adag tahay oo daruura adag ku timaado in loo baneeyay in maanta naftu isticmaali karto Allah wuxuu leeyahay subhanahu inma harrama alaykum almaytata waddama ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إله وحو إذن كحرم داد يغو بختي يميتدي يليبي يهرب إلبي ضفارك إنا عنتان واستعماشا والذي كحرم وحي إلهي غير كي لو قورعين والله فمن الضر قفكي لو دبقلي مرك قفكي لو دبقلي باهي قاتشا دران أي قبطه ومركا غير باغ ولا عاد مد محنكرا عراق iyo burcadnimo iyo balaayo ku jira aan ahayn isagu muslim ah oo kuman oo wanaagsan laakiin u dhigmuta wuxuu cabo iyo wuxuu cuno oo kala waayay naftuna gaajo uga baxayso fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim waxdan biya ma hada xogaa nafcishi ah ka nafcishato wax dhibaato ama waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma durirtum ilayhi جديد وحي ليدين دبقليه مويان الامام النووي كتاب كسا مجموعه او كتب مراجع الشافعيه كميته مجلد كسغالات صفحه افر يا افرت وحليه واتفقوا على جواز الاكل اذا خاف على نفسه لما حتكون اتفاق قفكو هدي نفتي سارنا ضد ما تابع استراحته انه كنف عشاده شريعه وبنيسي وسوا فقسين علماء waxyaabaha qodobada u dambeeya in badan ba uu yara ururiyay kelmadii oo maadaama waqtigu iska waxaysmay naftu waxyaabaha shariicadu la timi qaabka loo ilaalinayo waxaa ka mid ah in loo baneeyay waxyaabaha aynu sheegnay daruuriyaad ka ah in loo baneeyay wixii daruuriyaad ku yimaada الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها إن شريعة صار إلى لسي oo ay shariicadu meel adag saartay qofku xitaa waxay culimada qaar gaarsiiyeen haddii qofku isaga oo ibn Qudama muqnigiisa ku keenayo haddii qofku isaga oo nafcishi hadduu nafta ku cishan waayo oo wixii daruuradu uu ku mutay ee xaraamta ka ahaa ee baqtigii iyo wixii la midka ah uu sidaa gaajo ugu dhinto inuu khatar ku gelayo إنه خطر بكل يا آخر أرنتاس إن لو قبصدوا وأن قنقرت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفتي إنها كفيدنا هلاك أن قنقر يصوب أي علماء قار أي تلمامين يسقوا مركا إن الديد يوم ويالله عليه ولا تقللوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفتي إنها الديننا على أحد ديننا حريصا هذا سبحانه وتعالى waxyaaba waxa kamida qofkii xitaa hadii uu u baahan yahay in maal la siiyo oo daruura ahaan loo badbaadiyo naftiisii inay banaanta halaag looga badbaadiyo qodobka sagaalaad ee u bandeeyay kelmadeyda ilaalinta shariicadu nafta say u ilaalisay mashruuciyatu tadaawi shariicadu waxay sharciyeysay qofkii xanuun la soo gudboonaadee bukooda inuu isdaweeyo oo naftiisa si u badbaadiyo rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam tadaawu cibaadallah adoomihi ilaahayow isdaweeya fa innahu ma min daa'in illa walahu dawaa ma jiro cudur illa dawadiisuna waa jirtaa ilaahay waa keenay subxaanahu wa tacaala inaasan ku ururin doona inta wax ka sii badan oo masaladan u baahan akhrinteeda qofkii u baada الموافقات للإمام الشاطبي بديب راجعي كرا مقاصد الشريعة لابن عاشور وحديب راجعي كرا مقاصد الشريعة
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية دكتور محمد سعيد كتبتها سودانية هناك وكيل دونتان. أسأل الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.